إبراهيم صلاة أنا دلع لبا سنة أنا كرفردين ماني قرعدي ماني قديه ماني هرد ماني هرقلي باب باكو جرا وان قدينا وان قادة سرير بانساري حبين دقاقنا مقبو انتاس او السنة aan la kor joogay aan ku rafaadsana dib saa'ide inta islaan ummadda nabi maxamed dibad iyo baxrba bajirtoba waxaan ku salaamihay canugan si dhaqsi hindi in liigu qaado oo liigu soo caawiyo dibka i haasto oon u madoobaade oon u hurdeenin oon u seexaneenin oon u qadeeynin oon u quudaneenin waan u soomay waan u salaade insha Allah waxaan rabaa in liigu garab qabto ummadda nabi maxamed nin laba meeshu joogo haddii maqlaysiin haddii li arkayba islaamka ilaahay ummadda nabi maxamed aanu cabanhay wax ii horeey wax ii dambeeyno ma jiro san ku neefla ummadda nabi maxamed inta soomi salaadi haasaan u baryahay insha Allah waxaan rabaa in liigu garab qabto hindi liigu qaado si dhaqsi haddii sidii dhaqsi aan rab ummadda nabi maxamed in dabaysha Allah wad li raaciyo oo liigu garab qabto oon u hurdeenin oon u soomayn u salaadi hayo anugan waxaan rabaa dibka i haasto aan u madoobaade oon habeen u hurdeenin dharaarna aan u hergelaynin oon gedin hayo oon qaadi hayo oo maceen oo masbuul aan u aho meeshaan ku jirona cariiriga iyo dibka i haasto ilaahay ogyahu waxaan rabaa inaad igu garab qabatiin oo si dhaqsi oo liigu qaado sidaasaan rabaa saddex anug Ibrahim xanuunkiisa waa maxay Ibrahim xanuunkiis waxa way oor baa ku dhacay laf dhabarku ka jabay laf dhabar uu ka jabay meel yar ka jabay oo meesha qoortu ka jabay waa la kabaa la dhahe kabisti waxba uma tarin saddex anug uu dhale saddexdii anug iyo annakaba dad baan kor saarana waxaan u haasto oo qada ee maanta u soo horeyso aan u haastona ma jiro alxamdulillah anugaygi ilaahay baa yeele waan ku rafaadsana ummadda nabi maxamed inta soo mihaaso oo salaadi hayso waxaan ka rabaa in liigu garab qabto oo si dhaqsi 10 beri in liiga soo dhaqso dibka i haasto haddaan tollahno oon islaannahno ummadda nabi maxamed aan sheeganayno si dhaqsi in garab liigu sii aan rab alxamdulillahi rabbil aalamiin والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا دائما أبدا إلى يوم الدين. أما بعد إخواني وإن سلام يا صلاة سلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد التحية المباركة طيبة سلامة إسلامك وقالي كذب أنيقا وحاليدها مقعيقا الشيخ عبد الرزاق حافظنا هذا أن جوجنو إمام كيدي أيان هاي نكن أركيسان وحنوسن ولالك عناقا أيا دبي ججبيي مدة الله والسنة halka ay u jiifaa wax oo macnaha daryeel meherin waayo dadka uu ka dhashay dhaqaalo weyn ma haystaan marka asaga waa imtixaan yahay oo ilaahay imtixaanayo dibigaas ilaahay ku saliday lafta dhabarka ilaa luqunta ayaa wax ka gaareen ma socon karo marka annagana waa imtixaananahay ilaahay nagu fiirinayaa inaan wax u qabanayna muslimiinta inay wax u qabanayaan marka muslimiinta waxaan si naxariis leh ooga codsanaynaa ninkan islaamka ah inay u soo gargaaraan waxay ilaahay idin dhiibay xoolihiina ilaahay inuu idin barakeeyo oo caafimaadka ilaahay idin barakeeyo balaayo dhan iyo aafo dhan ilaahay idinka ilaaliyo ilaahay idinkiis marka ninkan walaalka anaga jiraanna waa nahay imaamka qariidana waa nahay marka in tabarucaad loo sameeyo isbitaalada markii la geeyo waxay dhaheen waxa looma qaban karo hindiya in la geeyo mooyaane lacagta hindiya lagu geeyahay lama hayo marka in muslimiinta looga aruuriyo ayaa la doonayaa meel kasta oo muslimiinta joogaan codkayga inta maqlaysa marka ninkan inaa usoo gargaartaan ayaa idinka codsanaynaa sadaqada waxaa weeyaan faa'iido fara badan bay leedahay balaayo adduun iyo mid aakhira ayuu ilaahay kaga xijaabaya midda labaad maalinta qiyaamada maalin uu har jirin oo hoos jirin oo hooska ilaahay la harsanayo ayay har ku noqonaysaa faa'iidada saddexaad waxaa weeyaan jahannamada ayay kaa difaacaysaa waa gaashaan marka faa'iido fara badan bay leedahay
marka ilahi subxana wa tacala wuxuu dhahay naftiisa ninkii ka ilaaliya baqaylnimada ninkii laga ilaaliyo waa liibaane waman yuuqa shuxa nafsihi wa ulaa'ika hum almuflixuun marka liibaan adduun iyo mid aakhira haddaa rabtaan ninkaas waa halka annaga miskiinka ah oo halkaa jiifo muddo 2 sano saxaradii kaadada laga qaadayo u soo gargaara ilaahina ha idiin gargaaro garabkiina allah ha galo muraadadiina allah ha sahlo meesha ka oomantiina allah idinka waraabiyo musiibada intay kaa maqan tahay ayay qeyrkaa ku maqan tahay annaga hadda caafimaadaan qabnaa waa halka annaga nagu jiifaa beri ka maalin waxaa laga yaabaa inaan annaga soo seexano oo musiibadii ay soo noqoto marka ilaahay subxana wa tacaala musiibada hanaga xijaabo xoolaha allah noo dhowro nafta allah noo dhowro maalka allah noo dhowro idinkana allah idin dhowro waxaa idinku codsanaynaa si naxariis leh ninkaas inaad ka soo jawaabtaan jawaab farxad leh oo ilahina idinka farxiyo idinkana aakhire adduunba jawaab farxad leh inaad ka soo jawaabtaan waxaan idinku duceeynaa inuu ilahay idinka farxiyo aakhire adduunba inuu ilahay idinka farxiyo nin walooba wuxuu jecel yahay uu niyaddu ku hayo oo khayr ku jiro ilahay inuu waafajiyo yaa idinku duceeynaa wuxuu ka cabsanayo oo naarta jahannam u weyn tahay inuu ilahay idinka xijaabo waxaad rajaynaysaan oo jannatu firdows alaclaa ay weyn tahay ilaahay inuu idin siiyo yaa idinku duceeynaa baaraka allah fiikum wajazaakum allah khayr walaalayaal nin walaalkaayna aan la joognaa xanuunsan muddo 2 sano nabiga calayhi salaatu wassalaam wuxuu yidhi man laa yarxam laa yurxam qofkaan naxariisanin looma naxariisanayo ninkan walaalkaayne isbitaal weyn u baahan yahay oo indiya wax caawinayna ma lahaan waxaan isla joognaa sheekh cabdirasaaq xasan oo qaryada ma aragtay imaamkeeda ani kollayto waxaan ahay nin marti haddaan isa soo raacnay nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay wallahu fii cawni alcabdi maa kaana alcabdu fii cawni akhiihi qofka intii walaalkiis uu kaalmaynay asagana alla subxaanahu wa tacaala ayaa kaalmayni oo danihiisna u qabane faa'iido fara badan ay leedahay dadka walaalaha oo la caawiyo wuxuu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa niila gargaari dadka ducafada markaad u gargaartiin aa niila gargaari risqiga niila fidini saas daraaddeed walaalkayna waa inaan macnaha aan caawinno oon muxuu ahaay niyadana aan wanaajinno wuxuu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam ittaqu nnaara walow bishiqi tamratin war timir jeexeed hatee naarka baqa timir jeexeed hatee allah ka dhigay war wax sadaqaysta kollayto bini aadanka xoolaha lagama simin waa kan alla subxaana wa tacaala uu leeyahay naxnu qasamnaa baynahum maciishatahum fi lxayaati addunya dadka noloshooda annakaa qaybinay wa rafacnaa bacdahum fawqa bacdin barkood barka kale aan ka kor marinay saas daraaddeed walaalayaal walaalkayn aan caawinno caawinaadu u baahan yahay inaan annakana maaragtay ilaahi subxana wa tacaala uu nagu guuleeyo maaragtay aan dadaalno nin allaale ninkiina arki hayo maalan oo dhagaysan hayo waxaan rabnaa in macnaha maaragtay uu ka qayb qaato